لوا قروح تمار official قالن جوي قفتها وقنعي ولا قيمين هيا لهون واق. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي شرفت له soo dhawaada meel walba aad joogtaan asxaabay channel kuwa qurux dumar official ku soo dhawow hadii aad igu cusub tahayna please subscribe saar like saar si share garee hadii aadan igu cusbeyna comment iyo like ila wadaag asxaabta qaaliga waxa idin leeyahay jimca mubaarak meel walba aad joogtaan jimcaha idin wacnaado insha Allah asxaabta qaaliga waxa idin ka codsanayaa mar koowaad iyo mar labaadba hadii aad igu cusub tahay subscribe ka isaar insha Allah hadii aadan igu cusbeyna commentiga iyo like ila wadaag asxaabta qaaliga insha Allah asxaabay dhiirigelintu waa muhiim marka insha Allah asxaabta qaaliga maxaan maanta idin wadaa maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo hadii Ilaahay yiraahdo faa'iidada malabka ay leedahay waa wada ognahay Soomahan faa'iidada malabka uu leeyahay in uu soo raacodkayga haduu gaabto in uu malabku faa'iido leeyahay maxaa la dhahaa waa wada ogyahay Soomaha faa'iido aad iyo aad u balaaran ayuu malabka leeyahay marka faa'iidaas aan ka faa'iideysan hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah marka waxaan rabaa maanta in aan uga hadlo barnaamijkayga hadii Ilaahay yiraahdo malabka macnaha faa'iido uu leeyahay iyo malabka waxa loo aqoonsan yahay in uu macnaha ku jiro cuntooyinka ugu faa'iido badan ayuu ku jiraa sidiisoo malabku wuxuu ku jiraa cuntooyinka ugu faa'iidada badan ayuu ku jiraa oo fitamiinaadka ah macdanta ah sida la aaminsan yahay sidaas darteed wuxuu ka hortagaa bakteeriyada ayuu ka hortagaa insha Allah marka asxaabta qaaliga malabku waa waxaad aan sheegay ma ahan hore loo soo sheegay kulay idinkana waad ogtiin laakiin waa isxasuusin Soomaha in laga faa'iideysto marka hadaad doonaysid macnaha caafimaadkaaga inuu ku wanaagsanaado ama uu ku hagaago maalintii waxaad qaadataa hal qaado oo malab ah waa hadii aad doonaysid caafimaadkaaga qof aan doonin ma jiro caafimaadkiisu inuu u wanaagsanaado qof kasto caafimaadkiisu uu ka fikiraa marka hadii aad doonaysid caafimaadkaaga inuu ku wanaagsanaado ama uu ku hagaago waxaad isticmaalaysaa maalintii hal qaado oo malab ah hadii aad helaysid kulli malabku waa la wada helaa meel walba uu yaala waa malabka saafiga ah insha Allah hadaba faa'iidooyinka qaar oo leeyahay malabka maxaa kamid ah malabka waxa faa'iidooyin badan ku jiro saa hore idinku sheegay raali ahaad codkayga inuu iska gaaban yahay macquula faa'iidooyinkaas maxaa kamid ah faa'iidooyin badan waa saa idin sheegay midka ugu horeeyo wuxuu ka ridayaa baruurta ayuu gubayaa waa malabka faa'iidada laga helo waxa kamid ah inuu baruurtaada gubo maxaa lahay wuxuu xoojiyaa wadnaha xataa uu xoojiyaa xasuusta wuu hagaajiyaa xasuustaada wuxuu ka dhigayaa xasuustaada macnaha xasuus fiican hadii hilmaankaaga uu badan yahay oo kaleeto waxaad ka helaysaa hurdo macaan ayaad ka helaysaa maasha Allah hadii hurdo macaan laga helaayo habdhiska jirkaagana wuu xoojinayaa waa habdhiska jirkaaga ayuu xoojinayaa waxa kale oo kamid ah kansarka ayuu ka difaacayaa najina Ilaahay ha naga najiyo marka asxaabta qaaliga ah waa inta idin soo sheegay iyo inka badan oo faa'iido ayuu leeyahay insha Allah laakiin faa'iidooyin la soo koobi karo ma ahan malabka hal qaado malab oo aad isticmaashana maalintii ma sha Allah waa waxan aad u badneen marka hadba malabka sida aad u isticmaasho ayuu ku xirantaa laakiin hal qaado kaliya hadii aad ka isticmaashid waa faa'iidooyinka aad ka helaysid maxaa la dhahay aan kugu soo celiyo miisaanka jirka ayuu ka dhimayaa macnaha baruurtaada ayuu gubayaa waa hal qaado leh baruurta oo maalintii aad isticmaasho baruurtaada ayuu gubayaa okay maxaa la dhahay wadnahaaga ayuu xoojinayaa oo wadnaha ayuu xoojiyaa xusuusta ayuu asagan xusuustan uu ku hagaajinayaa hurdo macaan ayaa laga helaa hurdadana ma sha Allah waa hurdo hadii hurdo macaan ah helaysid alxamdulillah intii haysato Allah u saacidiyo inta haysanina ayagana Allah siiyo hurdadu waa muhiimada koowaad okay qofka haduu hurdo fiican uu helo caafimaadkiisuna waa ma sha Allah wax ka dhiman malahan
habdhiska dheefshiidka ayuu xoojiyaa. waa midda kale, habdhiska dheefshiidka ayuu xoojiyaa. okay, haraga sare ee maqaarka ayuu nadiifiyaa. waa haraga sare ee maqaarka ayuu nadiifiyaa. dhalaal qurux badan ayuu kaasoo saarayaa. midda u dambeysa maxay ahayd, kansarka ayuu kaa difaacaya. ilaahan ka magan galnay, allaha naga najiyo. marka meeshaas maxaa ka dareemi kartiin? waxaa ka dareemi kartiin malabku inuu aada u wanaagsan yahay oo maasha allahna uu yahay, uu faa-iidooyin fara badan oo aan la soo koobi karin inuu leeyahay malabku. mar haddii wadnahaaga uu xoojinayo, xusuusta uu ku soo celinayo, maxaa la dhahaye, habka dheefshiidkaagana oo sidoo kaleeto uu ku xoojinayo, miisaankaaga uu dhimaayo, maasha allah. maqaarkaagana uu qurux dhaldhalaal u yeelayo. maqaarka sida siiba dadka maqaarkooda xoogaa dhinta xataa wuu soo celinaya. maqaarkaaga qurux uu ka dhigaya. wax kareem xataa ma u baahanaysid. malabku aad ayuu u wanaagsan yahay. marka waa hal qaadoo malab oo aad isticmaasho oo kaliya. marka malabna meel walba wuu yaalaa, meel laga weynaayo ma jirto. adduunka dhan malabku wuu yaalaa. marka faa-iidooyinkaas faraha badan ayaan ka helaynaa insha allah. waxyaabaha aada loogu bogo waxaa kamid a miisaankaaga inuu uu hoos u dhigo. miisaankaaga dadkana badanaa waxay la dagaalamaan miisaankooda inuu hoos u dhigo. waa qof ka cayilan ama miisaankiisu saa-id yahay. ma haddii baruurta ay gubto miisaankaagan hoos u dhaco, ya maasha allah, adigoon wax kala raadinin ayaaba aad miisaankaaga u degaya soomaha. marka insha allah asxaabta qaaliga ah, intaas ayaa idiin soo gudbinayay faa-iidooyinka uu leeyahay malabka. hal qaado oo aad isticmaasho maalintii ayaad waxaad ka helaysaa inta aan idin soo sheegay oo faa-iido ah oo dhan ayaad ka helaysiin insha allah. waxaan rajeynayaa in aad ka faa-iideysatiin haddii ilaah yiraahdo. ka faa-iideysiga wuu wanaagsan yahay soomaa in wax laisku sheego. marka asxaabay insha allah waxaan rajeynayaa haddii ilaah yiraahdo in aad subscribe-kana ii saartaan oo like ii saartaan oo iisii sheer garaysaan. waa haddii aad igu cusub tahay. haddii aadan igu cusbeyne commentiga iyo like aad ila wadaagtaan. asxaabta cusub ee timidne waxaan idin leeyahay soo dhawaada, gacmo furan ku soo dhawaada. mininku waa mininkiini, ha ismartiyeenina. asxaabtii hore ila joogtayne waxaan idin leeyahay sidoo kaleeto asxaabay insha allah. maanta waxaan barnaamijkeena uga faa-iideysanay hal qaado ood maalintii isticmaasho oo malab ah in laga helo faa-iidooyin fara badan oo aan la soo koobi karin. qayb kamid ayaa idin sheegay. malabku waxtarkiisu ma ahan wax inta lagu soo koobi karo. marka laakiin qayb kamid a hadda ayaan idin sheegay insha allah. barnaamijyadeena dambe ayaan idinkaga sheegi doonaa malabka oo lagu daray waxyaabo kale oo ayagana faa-iidooyinka ay leeyihiin. malabka kaligiisna waa la isticmaalaa, asagoo wax lagu darayna waa la isticmaalaa. asagoo kaligiisa intaasoo faa-iida leh, asagoo aan kaligiis ahayn maxaad u malayna faa-iidooyinka laga heli karo. marka malabka cid kasto ayaa isticmaali karto. macnaha faa-iido fara badan ayuu leeyahay. calaashaan waa macnaha waxaan ka wadaa cidda isticmaali karto. miisaankaagu uu saa-id yahay waa isticmaali kartaa. dheefshiidkaaga duuxan yahay waa isticmaali kartaa. hurdo la-aan hadday ku hayso waa isticmaali kartaa. ya haragaagi haddii uu mugdi soo galay, ya waa maxaa lahaa waa isticmaali kartaa oo jirka ayuu ku nadiifinayaa. waxyaabo badan ayuu u fiican yahay malabka. marka insha allah hal qaado inaad isticmaashiin ayaan rajeynayaa haddii ilaah yiraahdo. malabka dufanta xataa jirkaaga dufanta ku jirta xataa wuu yareynayaa. jirkaaga hadduu dufan leeyahay xataa wuu kaa yareynayaa malabka. marka ma soo koobi karna malabka faa-iidooyinka uu leeyahay. insha allah sidaa idin sheegayna waxaan rajeynayaa insha allah barnaamijyada dambe haddii ilaah yiraahdo oo idinka ilaahay uu noqdo malabka oo asaan idin sheegayba asagoo oo wax lagu soo lamaaniyey oo loo isticmaala adigoo malabka kaliya aadan isticmaalno oo wax ku darsanaysid na faa-iidooyinka uu leeyahay insha allah. aan ka faa-iideysano malabka. wadankeena wadankeenu wuxuu ku yahay caan ayuu ku yahay malabka. meel walba adduunka aad joogtidna malab waad ka helaysaa. marka insha allah
asxaabta qaaliga ah siba malabka saafiga ha lagu dadaalo haddii aa heli kartid hadaad heli karin hadda malabkii u dhigmo ayaa isticmaalaysaa insha allah wax unba ka helaysa haddii ilaah yiraahdo asxaabay insha allah waxaan rajeynayaa inaad ka bogateen haddii ilaah yiraahdo asxaabta qaaliga ah insha allah la joogiina waa ii muhiim soo dhawaada asxaabay insha allah waxaan idinkaga tagayaa aan rajeynaa inaan kaga tago salaanta islaamka asxaabta qaaliga ah insha allah inta ka horeyso salaanta islaamka inta ka horeyso waan idinkaga tagi doona soo raali ahaadaya subscribe-ka yaa layga iloobin like-gana yaa layga iloobin insha allah subscribe-ka iska saara like-ga iska saara sii share gareeya si asxaab kale uga faa'iideystaan haddii ilaah yiraahdo asxaabta qaaliga aad iyo idin jecelahay asxaabay waxaan idinkaga tagayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isku soo noqo dambe oo xiiso leh insha allah